Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidaan ognahay malaa'igtu waa macsuumiin, dembi ma galaan, xitaa ma awoodaan inay dembi galaan. Ma ahan sida insiga iyo jinka oo kale. Insiga iyo jinka Ilaahay wuxuu xorriyad u siiyey inay Ilaahay adeecaan, inay Ilaahay ku caasiyaanna xorriyad baa loo siiyey. Labada midka doonaan bay samayn karaan. Laakiin malaa'igtu dooqa ma lahan. Waa wax ku abuuray in Ilaahay ay mar walba adeecaan. Ilaahay markuu malaa'igta ka hadlayo waxa uu yidhaahday: laa yacsuuna allaha ma amarahum. Amarka Ilaahay kuma caasiyaan, oo wayafcaluuna maa yu'maruun. Wixii la amro bay sameeyaan. Maanta mawduuceen waxaan ku arki doonaa Haaruut iyo Maaruut ma malaa'ig bay ahaayeen. Reer bani Israa'iil maxay ka soo wariyaan Haaruut iyo Maaruut? Si la mid ah waxaan ka hadli doonaa culummada waxay ka yiraahdeen Haaruut iyo Maaruut. Waxaan ku bilaabi doonaa reer bani Israa'iil maxay ka yiraahdeen Haaruut iyo Maaruut. Kadib markii malaa'igtu arkeen bini'aadamka in Ilaahay ku caasinayaan, waxay Ilaahay ku dhaheen: Ilaahow, bini'aadamku way kugu caasinayaan, ku adeeci maayaan, cadaabtaadana ka biqi maayaan. Sidee sidaa ku dhacday? Markaas Ilaahay waxa uu malaa'igta ku yiraahday: haddii aad booskaa joogi lahaydeen, sidaas baad samayn lahaydeen. Markaas bay malaa'igtu yiraahdeen: maya Rabbiyow, marnaba ma dhici karto in aan adiga kugu caasino. Markaas Ilaahay waxa uu ku yidhi: laba malag iska soo saara oo aan shahwadda bini'aadamka oo kale ku abuuro, kadibna aan adduunka geeyo. Markaas waxay iska soo saareen Haaruut iyo Maaruut. Kadib Haaruut iyo Maaruut waxa uu Ilaahay ku abuuray shahwadda bini'aadamka oo kale. Adduunkaa la geeyey. Mudday adduunka joogeen, Ilaahay bay caabudayeen. Xitaa dadka dhexdooda waxay caan kaga noqdeen dad cibaado badan. Iska daa wax kale, khilaafaadka dhaca ayay kala xukmin jireen. Haaruut iyo Maaruut maalintii dambe Ilaahay baa imtixaanay. Gabar baa u timaaday oo rabtay in gar loo gooyo. Gabadhii bay jeclaadeen, waxayna damceen inay isku dhiibto. Iyadana waa ay ka diiday, waxay tidhi: haddii aad ii baahan tihiin, hal shardi keliya aan idinka rabaa. Waxay ku dhaheen: shardigaa waa maxay? Waa in aad caabudaan Ilaahayga. Waxay ku dhaheen: Ilaahaagu waa kuma? Waxay ku tiraahday: sanabka. Markaas waa ay diideen Haaruut iyo Maaruut in ay sanab caabudaan. Waa ayna ka soo tageen. Muddo markii ay joogeen, gabadhii jacaylka ay u qaadeen baa ku sii siyaaday. Maalintii dambe baa u yimaadeen gabadhii. Waxay ka codsadeen in ay isku dhiibto. Iyadana waxay tiraahday: 3 shardi mid sameeya. Haddii aad mid samaysaan, waad i helaysaan. 3daas shardi waxay kala ahaayeen: 1, inaad khamro cabtaan, ama in aad sanabkayga caabudaan, ama in aad naf dishaan. Markaas waxay doorteen in ay khamro cabbaan. Goortii ay khamradii cabbeen bay isku dhiibtay. Gabadhiina way ka sinaysteen. Intaa kadib qof meesha maraya baa arkay. Markaas Haaruut iyo Maaruut waxay ka baqeen inuu qofkaas sheego, maadaama dadka dhexdooda ay sharaf ku lahaayeen. Ninkii bay qabteen oo way dileen. Intaa kadib Haaruut iyo Maaruut waxay yaqiinsadeen in ay dembi weyn ku dhaceen. Waxay damceen inay duulaan oo ay samada aadaan, laakiin awood ba u yeelan waayeen. Haaruut iyo Maaruut waxay la yaabeen shahwadda bini'aadamka sida aan loo xakamayn karin. Markaas Ilaahay ayay dembi dhaaf u weydiiyeen bini'aadamka. Ilaahay waxa uu Haaruut iyo Maaruut kala dooransiiyey in adduunka lagu ciqaabo iyo in aakhiro lagu ciqaabo. Waxa ay doorteen in adduunka lagu ciqaabo, waayo adduunka wax dhammaanaya, laakiin aakhiro dhammaad ma lahan. Qisada aan ka soo sheekaynay waa wararka Israa'iiliyaadka ah ee aan la hubin in ay been tahay inay run tahay. Bal aan eegno qaabkay culimmadu uga sheekeeyaan. Xilligii Nebi Suleymaan waxay shayaadiintu awood u lahaayeen in ay war ka soo dhegaystaan samada. Markay warkaas soo dhegaystaan, been bay ku dari jireen. Kadibna dadka saaxiriinta ah oo iyaga u shaqeeya oo Ilaahay ku gaaloobay, dadkaas bay u sheegi jireen warkii ay soo maqleen. Markaas reer bani Israa'iil waxay u maleeyeen in shayaadiintu ay yaqaanaan cilmul ghaybka, laakiin cilmul ghaybka Ilaahay oo keliya og. Taasi waxay keentay in Nebi Suleymaan ay dhahaan waa saaxir, Ilaahay ku caasiyey. Reer bani Israa'iil Nebi Suleymaan nebi uma aysan aqoon. Waxay u yaqaaneen nin Ilaahay ku caasiyey. Dabaylahan iyo jinkan iyo xayawaanaadkan u shaqaynaya in uu sixir ku keenay bay u maleeyeen. Ilaahay baa awood u siiyey in Nebi Suleymaan jinka iyo dabaylaha iyo xayawaanaadka u shaqeeyaan. Wuxuuna ka mid ahaa 4 boqor ee ugu waaweynaa ee adduunka soo maray, siduu Nebigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam. Waa Nebi Suleymaan, Bukhtanasar, Nabruud iyo Dulqarnayn. Si Ilaahay reer bani Israa'iil ugu caddeeyo
in waxa Nabi Suleymaan la siiyay uusan sixir ku keenin. Wuxuu Ilaahay soo diray Haaruut iyo Maaruut. Haaruut iyo Maaruut dadka waxay bari jireen sixirka, iyagoo dhahaya war sixirku waa gaalnimo, iska daaya. Qofkii u baahan way bari jireen. Iyagoo reer Bani Israa'iil lagu imtixaanayo ayaa loo soo dejiyay Haaruut iyo Maaruut. Haaruut iyo Maaruut waxay daliil u ahayd beenta ay Nabi Suleymaan ka sheegaan, waayo waxaa loo caddaynayay sixirku inuu yahay barasho, uusan ahayn wax waxyi ah. Haddaba waxaan eegaynaa Haaruut iyo Maaruut ma malaa'ig bay ahaayeen? Culimmadu waa laba qaybood. Haaruut iyo Maaruut malaa'ig bay ahaayeen, iyo kuwa dhahaya malaa'ig ma ahayn. Aniga waxa ila saxan kuwa dhahaya malaa'ig ma ahayn, waxaana ka mid ah caalimka weynaa Ibn Kathiir. Ibn Kathiir wuxuu leeyahay Haaruut iyo Maaruut malaa'ig ma ahayn, ee jin iyo wixii la mid bay ahaayeen, isagoo daliishanaya aayadda ah wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wa maaruut. Ilaahay waxa uu leeyahay wamaa unzila cala almalakayni, laba malak kuma aanan soo dejin bibaabila magaalada baabil. Taasi waa hadal cad, laba malak kuma soo dejin buu Ilaahay leeyahay. Qowlka iila saxan waa in Haaruut iyo Maaruut aysan malaa'ig ahayn. Intaas ayuu mawduuceena ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.